ضميرك يا قولك كدورة دجال وسمايك hal qof iyo hal cod doorashooyin qof iyo cod ah waa hanaanka ugu wanaagsan heshiisiin kara bulsho colaad dhex taala oo kala shakisan doorasho qof iyo cod ah waa habka ugu habboon ee lagu dhisi karo dawlad shacabku leeyahay mas'uul dhageyso codka dhalinyarada oo hirgeli doorasho qof iyo cod ah dawladdu waa inay hirgelisaa doorashooyin qaran oo qof iyo cod ah si bulshada u noqoto mid go'aamiso masiirkeeda iyo waxa danta u ah baraaruq qaran waxay bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinaysaa inay qayb ka noqdaan hirgelinta doorashooyin qaran oo qof iyo cod ah rabitaanka dhalinyaradu waa hirgelinta doorashooyin qaran oo hal qof iyo hal cod ah wakiil bulsho oo bulshada dooratay ayaa ka shaqayn kara danaha bulshada qofkii uu ku jiro han hogaamineed waa inuu soo maraa doorasho qof iyo cod ah mas'uul shacabku doortay ayaa lagu aamini karaa maamulka canshuuraha iyo hantida shacabka gaarsii talada shacabka si uu u qaato qaybta kaga aadan amniga iyo xasiloonida dalka waa in la qabtaa doorashooyin qaran oo qof iyo cod ah oo ay shacabku ku doortaan golayaasha deegaanka golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya dooran damiirka gaday dooran dollarka radinay dooran